nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam idaa asbaxa ibliis basta junuudahu ibliis markuu waa beriisto waagu u beriyo ciidamadiisa ayuu baahiyaayoo kala diraa waa sida dawladahoo kale waay dawladdu markii waagu beriyo ayaa muxuu ahaayey shaqooyinkii la kala diraa oo ciidamada la kala diraa oo amniga la kala diraa oo hawlaha muxuu ahaay qabashadooda dadka loo kala diraa ibliisna sidoo kale waagu markuu beriyo ciidamadiisa kala diraya markaasaa wuxuu leeyahy man akhdala alyawma musliman ulbisuhu taaj ruux mu'mina ruuxii macsiyo maanta ku rida oo dembi ku rida oo shaqo fiican soo qabta abaalgud waxaan siinayaa weyn muxuu yahay taaj baan u xidhayaa ciidamadii iyagoo ballanqaadkaa haystay kala shaqo tegayaan waa ciidamadii ibliis hadhow markay shaqadii soo qabtaan riboodkiibay isaga ku soo celinayaan riboodyo kala gedisan baa marka loo keenayaa nin walba shaqaduu soo qabtay mid baa imaanaya markaasaa wuxuu leeyahay lam azal bihi xataa tallaqa imra'atahu anigu hebel kama zuulin inaan daba socdo maanta dhan oon ka shaqaynayo ilaa uu xaaskiisii furay isagiiyo reerkii baan isku diray waan ka shaqeeyey gurigii baan soo dumiyey carruurtii meel bay taallaa haweentii meel bay ku ballaanbalsan tahay odaygii bannaan ku yaallaa guri baan ka soo takhallusay markaasaa wuxuu leeyay ibliis meeshuu ka filahayay in taajka loo xidho waxaa lagu leeyahay awshaka an yatazawaja haddaad gurigii dumisay ood ninkii haweentii ka furtay wuxuu ku dhow yahay oo siga hayaa inuu guursado yacni ama iyadiibuba dib ugu noqono jaanis baa uga furan ama tu kaluu guursanoo guri kaluuba dhisi taasi waa arrin la kabi karo oo istidraag lagu samayn karo niyo wax baad soo qabatay laakiin wixii la rabay wax weyn maada keeni way macnaha ku kalaa imaanaya markaasaa wuxuu leeyahay lam azal bihi xataa caqa waaliday kama zuulin inaan ka shaqaynayo aniguna hebel ilaa uu labadiisii waalid caaq ku noqday ka amar diiday waalidkii caasiyey markaasuu leeyahay waa shaqo laakiin wuxuu leeyahay awshaka an yabarahumaa wuxuu kaasuna siga hayaa inuu u baarin noqdo oo waxaa dhici karaysa waalidkii inuu ku khaldamay intuu ka soo noqdo waalidkii uu raalli geliyo oo baari u noqdaa dhici karta waa arrin iyadana la kabi karo wey mid kalaa imaanaya markaasu wuxuu leeyahay lam azal bihi xataa ashraka aniguna hebel kama zuulin ilaa uu shirki ku dhacay oo gaalnimo ku dhacay markaasu wuxuu leeyahay anta adiga wey ninka shaqada fiican qabtay waa adiga leesh lianna shirki nin ku dhacay gaalnimo ruux ku dhacay waa ruux tegey waa adiga buuhi ninka la rabay laakiin weli taajkii uma xidhin riboodkii afraad baa la keenay nin baa wada raggiisii ka mid a markaasaa wuxuu leeyay lam azal bihi xataa qatala kama zuulin hebel ilaan ka shaqaynayo ilaa uu naf xaaraana dilay ilaa uu dhiig islaam galay markaasaa ibliis wuxuu leeyahay anta wayulbisuhu taaj adiga weeye ninkaasaa taajkii loo xidhayaa abaalgudkii ugu weynaana la siinayaa jaa-isada ugu sarraysa ninka qaatay ee ibliis ciidamadiisa waa ninka ka shaqeeyey naf bini aadan xaqdarre in lagu dilo ayib haddii intuu kaa shaqeeyey kugu kallifay inaad naf xaqdarre ku disho ciidankiisaad ka mid noqotay isagaad ka ag dhowaatay allah iyo naxariistiisana waad ka durugtay tabaaraka wa tacaala xadiidkaasi waa xadiis saxiixa sheekhulalbani caleyh raxmatullaahi iyo keyrkiiba way saxiixinayaan waxaa ku tusaya marka inayna walaalayaal masaladu masale fudud ahayn bal sacab muggii oo dhiig islaamoo daadiso in jannada aad kaga qadda waa ku filan tahay xadiidka tabaraani iyo bayhaqi ay soo saareen waa xadiis saxiix ligayrihi ah min xadiidi jundub bin cabdillahi albajali radia allahu tacala canhu ardaah nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam war ruuxii kari kara isaga iyo jannada inaysan isu diidin sacab muggii oo dhiigoo uu galay ha sameeyo iriddan uu ka tegayaa irid buu rabaa jannada inuu ka galo waxaa la leeyahay maya waa laga hor istaagaya waa ka tegayaa tu kaluu isku dayayaa waa laga hor istaagaya waa laga celinaya tu saddexaad buu isku dayayaa waa laga hor istaagaya waa laga celinayaa iridihii jannadoo dhan waa laga hor istaagaya maxaa dhiiday sacab muggii oo dhiig islaamuu qabaa nabar buu ku dhuftay madaxuu ka dakray gacan buu ku dhuftay calooshuu ku dhuftay dhiig buu ka daadiyey naf buu dilay ma ah
naf buu dilay waa ka sii halisan tahay dhiig aad daadisood xaqdarro ku daadisay oo sacab muggii ah waa ku filan yahay in jannada lagugu diido xaala allaahu baynahu wa bayna aljanna arrintu walaalayaal arrin aad u adag weeye khaasatan waxay sii culus tahay markaad dhiigga muslimka intaad daadiso haddana ku faraxsan tahay ood isla quman tahay ood sheeganayso way ka sii khatarsan tahay xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi man qatala mu'minan faاqtabata biqatlihi lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadla ruuxii ruux mu'mina dila haddana dilkiisa ku farxa sooma arag yacni waxa weye waa musiibo weyn dhiiggii waa la daadinayaa ha la daadiyee haddana waaba lagu faraxsan yahay waa la sheeganayaa waa la tabaninayaa warbaahintaa laga sheegayaa intaasaanu ka dilay intaasaanu jiirnay intaasaanu qoorta ka goynay intaasaanu marnay waxaasaanu samaynay mid baaba idaacadda taagan oo ku faanahayaba man qatala mu'minan faاqtabata biqatlihi mu'min ruuxii dila dilkiisana ku farxo iskula quman allah tabaaraka wa tacaala kama aqbalayo sarfan walaa cadlan sunno iyo waajib doona ka aqbali maayo cibaado waajibana lagaa aqbali maayo cibaado sunno ana lagaa aqbali maayo waxba ilaahay kaa yeeli maayo tabaaraka wa tacaala ruwaadda xadiidka nin ka midoo la yidhahdo yaxya ibnu yaxya alghasaani baa la weydiiyey faاqtabata biqatlihi maxaa laga wadaa markaasaa wuxuu yidhi waa dadka fitnada islaynaya oo midkood intuu dadka dilo haddana wuxuu sameeyey uu isla quman yaho isu arka inuu hanuun ku sugan yahay kadibna ilaahay dembi dhaaf ma weydiisanayo maxaa yeele diin buuba u arkaaba waaba isla quman yahay sidanaaba kula saxsanba macna walaalayaal arrintu marka arrin sahlan maaha dhiigga ruuxa muslimka waa laga taxadaraa waa laga fogaadaa haddii xataa aad u aragto inuu ka mid yahay qaybihii shareecadu fasaxday inuu yahay haddaad u aragto xataa marka aad miisaamayso iyo markaad ka hadlayso iyo markaad xukunkeeda qaadanayso intaba cabsi badan iyo taxadar badan iyo lug horay u dhig iyo mid gadaal u dhig iyo ka fiirso iyo ha degdegin iyo ha fududaanin waa in ay kugu jirto waa inay kugu jirto li'anna waxa weeyaan arrinkan arrin fudud ahayn ruuxii allah ka baqaya diinna yaqaana aakhare iyo waxa soo socdana ku tala gashan shaki wuxuusan ku jirin baabkani aad buu ugu culus yahay laakiin haddaad aragto ruux iska dabaalanaya danba aan ka lahayn dadkeedii ma aha xukumku iska gaadhayaa kadibna waa fulinayaa muxuu ahaayey isagaa iska qaadanaya dan kama le dadkeediina ma aha waxaad ogaanaysaa ruuxaasi diin la'aan baa haysa madharkiisa iyo muuqaalkiisa kore ha ku kadsoomin waa wadaad iyo multasim ha ku kadsoomin marba hadduu dhiiggu la fududaado ruuxaasi ruux sahlan ma ahee yuusan ku khaldin taxadarkaaga ka qaado asxaabu rasuulillahi sal alay wasalam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay intuu nin khaasa nebigu cayimo inuu yidhaahdo soo dila oo ninkiioo tukanahaya intay arkaan warsoo ninkani ninkii laynoo diray inaan soo dilla maaha oo wuu tukanayaa waa shahaadanayahay inay ka soo noqdaan waa shaksi la cayimay ma aha shaksi nas caama ama nusuus caama loo deliishanaya ma aha taxqiiqulmanaat waxay fuqaadiin uma baahna shaksigii caynan buu nebigu u cayimay sal lay slam war hebelow soo dil ninkaasaa lagu yidhi meeshii hadduu tagayna ninkiioo tukanhayo sujuudsanoo ashhaadani u tegay ma ninkanaad dili kartaa naftii baa siin weyday waa ku dhiiran waaye waa ka soo noqday xadiidka macnaha tilmaamaya waa xadiis duruqdiisa marka laysu geeyo martabada xasanka gaadhaya ama saxiixba gaadhi karaya axmed iyo keyrkii baa soo saaray min xadiidi abi bakra saxaabo kaleetana waa warinayaan nebiga sal lla alay wasalam